waxaad maqashay Soomaaliya ayaa daruurihii laga didsaday roobkiina laga dhacay. Waxaadse moogan tahay sidan oo kale Israa'iil inay roob ka leexsatay Iiraan, Itoobiya cayriyaamo u beddeshay roob, halka Imaaraadku xatooyo daruureed ku qaboojiyay saxarihiisa, iyagoo adeegsanaya cilmiga sayniska. Waxaa dad badani xasuustaan mar abaara aan horay loo arag ay ku habsadeen Jamhuuriyadda Islaamiga ee Iiraan, in madaxweynahoodu Israa'iil iyo Mareykanka ku eedeeyay inay u abuureen abaara ba'an xilli heerkulka dalkaasi uu gaaray halkii ugu sarreysay. Soomaalida oo su'aalo ka keenay in roobka la kala xadi karo awgeed ayaa igu riixday inaan mawduucan wuxuun ka dhaho. Quwadaha dunida oo qoryaha darandooriga u dhaca isku gumaadi jiray ayaa dhinaca kale ku loolamaya roobab alle ku manaystay wadamada qaar si looga gudbo caqabado dabiiciya loona gaaro yoolal kale. Wadan dhaqaalihiisu ku tiirsan yahay wax soo saarka beeraha ama xoolaha nool ayaa lagu sallidi abaara daba dheeraada oo qarka u saara inuu wajaho macaluushii ugu darnayd soona xiri karta ilaha dhaqaalaha ee dalkaasi. Maxaa yeelay saynisyahanada qaarkood oo ka faa'iideysanaya awoodda maskaxeed ee Alle siiyay addoommadiisa ayaa kala didin kara daruuraha cirku camiran ama ku di'in kara meelo kale iyagoo adeegsanaya hawada sare, una diraya diyaaradaha aan duuliyaha lahayn oo buufinaya maadooyin kala firdhinaya daruuraha diyaarka u ah inay curtaan. Roobku wuxuu ka mid yahay nimcooyinka aan la xisaabin karin ee Alle ku galladay addoommadiisa, kaasoo udub dhexaad u ah jiritaanka adduunyada. Saas oo ay tahay aadamaha oo doonaya inay ogaadaan wax walba ayaa faragashtay, iyagoo raadinaya inay wax ka qabtaan isbeddelka cimilada adduunka oo ku socda jadwalkii eebbaweyne u dejiyay. Dr. Qaasim Xirsi Faarax, Barofesor Soomaaliya ku xeel dheer cilmiga deegaanka, takhasuskiisa ku diyaariyay kheyraadka bad, berri iyo cir. Waraysi uu bixiyay toddobaadkan ayaa hadalhayn badan ka dhex abuuray Soomaalida dhexdeeda. Waraysigiisa waxa uu ku sheegay in la dhacay ama la boobay roobabkii guga iyo dayrta ka di'i jiray gobollada Soomaaliya, iyadoo la adeegsanayo cilmiga sayniska si loo abuuro abaara daba dheeraada oo saameeya dadka iyo dunyada. Warkaas dad badani ma rumaysan, waxayna u arkeen inuu faragelinayo amuuraha Ilaahay uu ku maamulo kownkan. Laakiin iyadoon Alle lagu caasiyeyn wax badan ayaa suuragal ka ah sida ay qabto culimada Islaamku. Dowladda Iiraan ayaa Israa'iil ku eedeysay inay kula kacday xatooyo daruureed laba xilli roobaad. Madaxweynihii hore ee Iiraan Maxamuud Axmed Najaad ayaa daaha ka fayday in cadowga dalkiisu ay dejiyeen qorshe halis ku ah oo ay abuurayaan abaaro, iyagoo baabi'inaya daruuraha roobka ka hor intaysan gaarin xilligii ay di'i lahaayeen. Xilligaas oo ahayd 2012, Iiraan waxay ka mid noqotay wadamada ugu cimilada qallafsan adduunka, waxaana saynisyahanadu ay qireen in daruurihii u di'i lahaa laga leexsaday. Hogaamiyihii Iiraan ayaa reer galbeedka ku eedeeyay inay maleegeen shirqoollo lagu wiiqayo awoodda Islaamka. Bayaan ka soo baxay xafiiska madaxweyne Maxamuud Axmed Najaad ayaa lagu yiri, cadowgu wuxuu burburiyaa daruuraha ku wajahan waddankeena. Tallaabada Israa'iil iyo xulafadeedu waa dhibaato weyn, waana bilowga dagaal ay Iiraan ku guuleysan doonto. Taliyaha difaaca madaniga ee Iiraan Sareeya Guuto Qulaam Riisa Jalaali ayaa qudhiisu Israa'iil iyo dalal kaloo shisheeye ku eedeeyay inay xadeen daruuro si ay abaaro ugu abuuraan. Dowladda Imaaraadka Carabta ayaa noqotay dalkii ugu horreeyay ee Carabeed oo roob leexsada, xilli heerkulka Dubai uu si joogto ah kor ugu dhaafay 115 darajo. Saraakiisha saadaasha hawada ayaa ku guuleystay inay daruuro roob ka dhaliyaan, iyagoo isticmaalaya kiimikooyinka darooniska iyo qalab kale oo elektarooniga. Dowladda Imaaraadka Carabta ayaa xaqiijisay inay roobka u ducfaruureen Ras Al Khaimah iyo Dubai. Dowladaha ku guuleystay tijaabada roobka looga dhalinayo daruuraha waxa iyana ku biirtay Itoobiya, sida uu ku dhawaaqay ra'iisul wasaarahooda Abiy Ahmed. Waxa uu sheegay inay xaqiijiyeen yoolkoodii muddada ay ku taamayeen, kaasoo ay cayriyaamo roob ugu bedeleen. Ilaa 3 maamul oo kan dowlad deegaanka Soomaalida uu ku jiro ayaana roobkaasi ka da'ay.